war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare isla markaana ku qornaa afka Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa waxaa looga hadlay baaqi shalay ka soo baxay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qoraalkan ayaa Hirshabelle waxa ay ku sheegtay inay ku soo dhaweyneyso shirka uu ku baaqay guddoonka aqalka sare si looga arinsado xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Waare ayaa sidoo kale shaaciyay inay Hirshabelle diyaar u tahay shirkaasi isla markaana ay uga qayb galayso si shuruud la'aan ah. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka inay u turaan dalka iyo dadkooda si looga baaqsado xasilooni darro siyaasadeed oo timaada. Warka ka soo baxay Hirshabelle ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulada qaar sida Puntland ay shuruud adag ku xirtay ka qaybgalka shirkaas. dhanka kale booliiska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta joojiyay mudaharaad lagu taageerayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. saakay wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu arkay ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaasi oo ka hortagaya bannaanbaxyo nabadoon oo lagu taageerayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Hirshabelle ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa gabi ahaanba ka hortagay mudaharaadyo nabadoon kaasi oo ka dhici lahaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. taliyaha booliiska gobolka Hiiraan Cali Dhuux Cabdi oo ka hadlay bannaanbaxaasi ayaa waxa uu kaga digay shacabka magaalada Beledweyne in mudaharaad aysan ka warqabin maamulka gobolka iyo kan degmada lagu qabto gudaha magaalada Beledweyne. hadalka taliya Cali Dhuux ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ayana ay ka socdaan bannaanbaxyo lagu taageerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.